dalka Sacuudi Carabiya jihad u socdo Ilaahay un baa garanaya insha Allah waxaanu rajeynaynaa meel wanaagsan inuu socdo insha Allah waxa la mamnuucay mikrofoonka xilliga salaada lagu jiro in banaanka laga maqlo quraan akhriska yani markii Sacuudiga la joogo dadkii Sacuudiga soo joogay ama ilaa hadda joogo way garanayaan markii banaanka aad marayso salaada hadii lagu jiro waad maqlaysaa aqinka haday tahay adinka haduu yahay iyo salaada xilliga lagu jiro quraan akhrisku aad maqlaysaa laakiin hadda waxa la dhahay kaliya adinka iyo aqinka ayaa loo gol yahay mikrofoonka inuu baxo waliba waa la gaabinaya markaa laakiin mar hadii salaada la galo imaamkii inta masaajidka ku jirto bisa maqlayso sida wadamada Yurub oo kale waa ina banaanka laga maqlin quraan akhriska sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye waxay abuuraysaa xanaaq dariski ay xanaaqay masaajidka dadkii wadada maray ay xanaaqayo iscaaj ay abuuraysaa codkaas la maqlaayo imaamka quraan akhriskiisa iyo quraankaas la dhageysanayo hadaba salaada jimcaha hadda la soo dhaafay maxaa dhacay waxa dhacday dad badan baa imaaday masaajidada qaar way buuxsamaan hadii buuxsamaan banaanka ayaa lagu tukadaa sida Soomaaliya xitaa macruuf ku tahay dadku Ilaahay waa barakay maalinta jimcaad baa loo soo buuxiyaa kubii marka banaanka ku tukanayay way maqli waayeen waxba sadarkiisu qaar way taagayeen qaar way fadhiyaan qaar way xanaaqeen oo iskaga tagan oo xilin war gurigeena ku tukanayna waayo imaamkii hoos buu ka soo xirtay masaajidka waxba lama maqlaan kadibna dadkii ya Allah wala arigu qosol maan waa arin laga dhaxo dal islaam ah inuu gadaal u socdo markaan meeshii la doonayo hore u socdo Turkigana waxaad arkaysaa hadda masaajidada la furuyaa masaajid cusub ayuu furay Erdogan jimciyada la soo dhaafay lagu tukanay bal masaajidada Turkiga suuratul kahfi banaanka laga maqlaa yani waa wadan dalxiis loo yimaado oo gaaladu u yimaadaan oo inta badan iclaamiyadu ay madax martay haddana waa kaasa hore u socda kaniisadaha wadamada Yurub waad garanaysaa markii birta yar la isku dhufto qayladooda madax ayaa ku xanuunay dhilan inta badan kuwa laga dareemo iscaaj badan iyo xanaaq laga dareemo waa wadankii waayo wadamada horumarwii hora loo socdaa Sacuudi Carabiyana muusikada iyo xafladihii cirkaas ku jiraan waayo hora loo socdaa asagana horumarka hadirtan la soo kordhiyay ayuu kamid yahay yani waa aragtida sodonka oo soo socoto ninkan dhalinyarada uu wato wii ilaah baan kugu dhaariyay fiidiyogan kale tood bal dhageyso quraan akhriskan ma waxa laga dareemayaa xanaaq miya laga dareemayaa ma iscaaj ayaa laga dareemayaa دائما المساجد هي الحلقة الأضعف التي يضغط عليها في كل شيء.